asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kaalintaada tiiriga somaiti training center fanology la dhammaanba waxaa idiin soo bandhigayaa barnaamij ku saleysan magaalada ku taala la yiraahdo Nijmegen ama Nijmegen u yaqaanaan Jarmalka. Nijmegen waxay ku taalaa wadanka Holland markii la joogo koonfur bari. waa magaalo xuduuda Jarmalka la ah ka saaran dhinaca Emmerich oo Burghausen ayay xuduud la wadaagtaa iyo magaalooyin kale oo Cliff la yiraahdo way tiro badan. Nijmegen waxaa ka dhacaa wax la yiraahdo Vierdaagsloop. Nijmegen waa caasimadda labaad ee gobolka Gelderland. saa la socotaba 12 gobol oo ka kooban yahay wadankan ama 12 province wax loo yaqaano waa midkiisa mid ka mid ay ku taala. waxay caan ku tahay wax lagu magacaabo Vierdaagsloop 4 maalmood oo la lugeynayo. marka 4taas maalmood bal meesha asalka ka timid iyo meesha salku haysan bal waxaan weydiinaynaa Google baan ku qoraynaa insha Allah, kadibna waxaan arki doonaa xaaladda ay arrinta tahay. sida ku muuqataba halkan Google waxaa ku yaala waxaan niri waa Vierdaags oorspronglik sida asalka intuu ka yimid Waarkom Vierdaags vandaan. Google wuxuu sheegi doonaa dabcan diese week usbuuca lagu jiro oo Vierdaags aan la dhahay die Vierdaags wuxuu yahay 109 jaar laga joogaa. macnaha waxa waaye 1990kii 1909kii Soomaaliga qalday. Eerste wet gehouden, het volk moest bewegen komen. dadku waa inay dhaqdhaqaaqaan, dus kwam een Vierdaags van wandelaar. saasuu kolley sheegaya oo ah asalka saasay ka timid uu leeyahay, laakiin asalka halkaanay ku qoran tahay meer dan 110 jaare boqol iyo maaragtay 10 sano terug woensdag 1 september 1909 klonk waxaa dhacay maaragtay start schot oo lagu magacaabo gunshooter in qoryaha la qaata oo dadkay bilaabaan ay vandalentoch oo iska qorookan inay dadka sameeyaan socod. asalka military ka imaaday asaa noo sheegi doona. wat is oorspronkelijk avond Vierdaags muxuu yahay avond Vierdaags maxaa la dhahaa? habeenka ma baahnin laakiin waxaan u baahanahay su-aasha saxda ah asalka meeshu keen. sidee Netherland uu joogaa? who is the Vierdaags ontstaan Netherland? ja Netherland waxa waa Vierdaags lang wandelen kwam in militariga ayaa asalka ahayd. dulkana wuxuu yahay hadafku wuxuu yahay condition of baabay by military. hasalkoodii waxaa lagu bilaabay militariga in maaragtay kondisigiisa waxaa laga waa caafimaadkiisii la dhiso oo la daryeelo. van 18 kazernas vertrokken. kazerna waxaa la meelaha weyn qalcadaha ay militariga waqtigaas deganaayeen. in totaal waxay ahaayeen 296 military 296 military iyo team burqan dadweynaha ka tirsan oo 10 ah. marlivise waxay ahayd 14 barcos na Breda. waxaa lagu aaday magaalada Breda dad geeft waxay tilmaamaysaa taas ay siinayso khuduu ama lahaansho ama dulqaad leh. dus 1 jaar later nog start plat saarneen. sanad kadibna waxa laga bilaabay Arnhem. asalka meeshaas ka yimid. asalka waa askar ciidamo ah oo tiradaas dhan inay bilaabaan. ujeedadana waxay ahayd askarta in maaragtay awoodooda kondisigooda awoodooda la fiiri. dadka ka qayb galay marka waxa waaye asalka waxa loo bixiyay Vierdaags wandelen evenement. kulan iskugu yimaado oo dadka ay wada socdaan. marka saasa asalka waa sababta loo soconayo waa saas way ku leeyahay. macnihiisu muxuu yahay? wad isbiteken Vierdaags waxa waa Vierdaagen oo la soconayo ka bacdi dadka sportifka iyo dadka vandal evenement dadka qabanqaabiya xafladaha suuqeynta iyo kuwaas oo dhan baa ka soo qayb galaya. oo outside Vierdaags meeqa sano uu jiraa marka? wuxuu jiraa 105 sano rajeynaya. sanadkii hore 104 ahayd 105 sano.
105 sano sanadkii hore waa 104 ay ahayd ma sanadkan 105 waay ya sanadkii hore waxaa la qabtay 20kii Juulaay 2022 sanadkan waxaa la qaban doonaa 18ka Juun 2023 xaggee seexanaya dadka waxay seexanayaan individual deelname inschrijven aangeven waa inay isdiiwaan geliyaan si gebruiken willen overnachtis verzorgen kamba meel kama ah Human oo Noord lagu magacaabo la geynayaa meeshaasay dadka seexanayaan waa meel iska kayma oo kala camal qofkii dadku haysto dadku la seexanayaa dadka qaar teendooyin iska seexana marka waxaasoo dhan oo ka sheekeynaa sababtu waa saas waay marka haddii taas la fahmay fiirdaaqiska meeqa qofka kasoo qaybgalaya is leedahay xaggee iska qori karaa maxay tahay asalka waxaa la yidhi waa askar oo la rabo in conditionkooda ama awoodooda tababarka loo maaragtay kordhiyo website-kaanu qofka iska qoraya oo ku salaysan fiirdaaqis meedun aada samaynaysaa 70 nationality ka qayb galaysa sanadkii waa 105 ah halkaas ku qoran sida ku muuqataba vandalen fiirdaaqin waxaa waaye 30 kilomitir la soconaa 40 la soconaa of conton intaasaa jira dadka ka qayb galaya waa burqar dadweynaha burqar waxaa la shacab waxaa ka qayb galaya military waa 296 military meelahaas ayaa ka qayb galaysa dad uniformeerd ah uniform wata hele familie vriendschap dad asxaab ah vantelfest marka intaasoo dhan ka qayb galayaan haddaa inta fiiris haddaad iska qoraysa halkaana riixaysa in isqrayf burqar haddaad tahay halkaana waxaa waaye haddii inisqrayf burqa gruub haddaad tihiin keliga haddaad tahay iyo haddaad gruub tahay haddii military yihiin intay iska qorayaan haddii military department ya online oo ka samey karaan qaabkaas waa qaabka meeqa bixinaysaa lacag waxaa bixinaysaa inscribe baydra 109 eera bixinaysaa 4taas maalmood medaaliya lagu siin doonaa waa lagu diiwaan gelinayaa meesha la sheegayo seexanaysaa lagu siinayaa dabcan cuntadaadii waxaasadaad iska iibsanaysaa waa iska zalaq camal waay marka haddaad fahantay marka 40 maalmood soconayso fiirdaaqiska waxaan rajaynayaa magaalada meeqan inaad ila fahanteen dadka kasoo qaybgalaya tiradooda meeqa waay markaas sida duqa magaaladu ka dhawaajiyey waxaa la rajaynaya yiri nus milyan 500,000 oo qof imaanaysa 70 wadanayna ka imaanaya 70 wadan military ingiriis imaado oo Canadian imaado militarigana arkayso calanka ingiriiska wataan sida ku muuqdaba marka adduunyada dhan laga imaada waa socod la dhahayo the walk of the world ya socodkii adduunka jarmalka ka soo qayb galaa wadamada dariska waa imaadaan marka dadkii isdiiwaan galiyay lacagtaasoo bixinaya aan soo sheegnay marka waa dadka qaarna qazalaqa iskaga imaadaan in iskaga daawadaan oo iska fiirsadaan maalinta jimcaha lasoo xirayo isniintu bilaabanaya isniin talaado arbaco khamiis ay ku egtahay jimcahana waa gabagabadii waqtigii magaalada kusoo xaroonaya hadday ka baxayaan magaalada banaankeeda tuulooyinkaasay soo marayaan Arnhem dhulkaas dhan kadib magaalada Nijmegen waxay kasoo galayaan dhinaca Arnhem buundada weyn halkaasay soo galayaan centerka magaalada ay soo mari doonaan dadka qaar marka dadka magaalada degan maalinta khamiiskii dadka inta badan daawadaan oo dadka meelaha marayaan waa kaas marka walaalaha daneynaya marka inay wax ka ogaadaan taariikhdiisa waa saas waa iska socod waxaan rajaynayaa in wax badan la fahmay wixii su'aal ama comments fadlan qofkii qaba hoosta nagula wadaag adigoo mahadsan insha Allah